argagixisadii Soomaaliya weerarka ay galabta ku soo qaadeen hotelka ganacsiga ah ee Tawakkal oo isku dayeen in ay ku gumaadaan dadka Soomaaliyeed sidii awal bacaadada u ahayd. Ilaahay baa ku mahadsan barnaamijkaas waa la soo afjaray qodobkaas weeyo. qodobka labaad waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sido kuwa xooga dalka Soomaaliyeed guutada 11aad iyo ciidamada danab iyo ciidamada geesiyaasha ah ee Jubbaland oo arintaas ku soo afjaray waqtigii loo baahnaa ayna la jiitamin ayagoo taxadir badan muujiyay. qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo. qodobka saddexaad waa waxyeelada ay geysteen argagixisada horta marka hore waxay ahaayeen 4 qof. nin wuu isqarxiyey waa ninka dadka isku qarxiyey, 3na hotelkay galeen, 4tiba waa la soo afjaray. ilaahay baana ku mahadsan. dadkii hotelka ku jirayna intiisi badnayd way badbaadeen lowlaa ay dhibaato gaartay arday ka soo dareertay dugsiga hotelka u dhow. marka dhimashada rasmiga ah oo maxaan ku yiraahdaa ay geysteen waa 9 qof, dhaawacana waa 47. 9kii qof oo dhimashada ahaydna guddi baa loo saaray aaskooda. 47da dhaawacana waa la dabiibahayaa isbitaalka yaalaan. ayaguna 4toodiba waa la soo afjaray. xaaladda aan la wadaagaya dadka Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Jubbaland iyo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada qalabka sida intaasay ku kooban tahay. waxaan aad oo si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa arintaas siday iskaga xil saareen ciidamada qalabka sido ayagoon u kala harin muddo gaabanna lagu soo